وما هي سببت فنانينتي هبلي وابري أنا متكمل مقالة هرجيسة وقدقين هدي أنا يستاق ahayn ما هرجيسة فنك نعب ما يهرجيس واحد بيكون فان تابع إنay tahay هوي فنك سيدنا وذوقنا هي ما أرجنا فنان أنا يستاق ahayn وهبلدي وابري كترسن وهرجيسة كدقي صدق كيس سنوات الدولة دي بالبورصنايد وما هي سببت هلقا مقالة وقلا وما هي برتبين ما تكون عدين تونا هلقا مقالة وجرة إذا أنا يستاق ahayn أمدن بها قالوا أمدن بيانو قلين إنه مقالة هرجيسة كصدقه هديبة وتمرين يي وقت دولة دي الصومالية ترتي هلقا waxa uu geystay tusaale u ah abwaaniintan iyo fanaaniintan hargeysa u tagi weydayna bartan baynu maanta ku cadaynayna allaha u naxariistay boqorkii fanka Soomaaliyeed Maxamed Saleebaan Tube ayaa magaalada Hargeysa ka degay 2004 inkastoo Maxamed Saleebaan uu isba ka soo jeeday Hargeysa iyo gobolada waqooyi haddana muu hayn beesha ugu tunka weyn ee saad Maxamed Saleebaan oo dambi dalka ka galay dawladdiisa markii burburteen qurbaha u cararay ayaa isagoo kalsooni isku qaba godob la'aana ka degay magaalada Hargeysa maxaa ku dhacay Maxamed Saleebaan horta siba looma soo dhaweyn markii soo harbay si yar oo dhuumashaabo Hargeysa iskaga degay fanaaniin xilliga Hargeysa ka heesi jirtay oo u badnaa qabiilkiisa ayuu u sheegay inuu fan rabo inuu show ku qabsado magaalada Hargeysa cidii joogtay ayaa magaalada Hargeysa waqtiga joogtay meesha ugu weyn ee xilliga showga lagu qabsado markii fanaan yimaado waxay ahayd Hargeysa National Cinema وسيدنا ودوقنا عوالية أو اسمه وقت جاي مكو قبصتي وبحفامه وقت جات ميوضه مكو قبصتي محمد سليمان بورد بالوجود دشيء بقول كي فنك الصوماليات أيام مقالات جيسو شو هبين هذا النقو قوانية مين كان الله يراهضه بابا يوسف تعالي أيام وحكولي جاي محمد سليمان وراقو أيو لو أنتو داليرو اللي بي لوجو هرت هذه سينماجي وراقو ده وحكو قرن دالني يوجو وينا الدنيا هرجيسة أو شو ينوجو قوانية عاو مقالات هرجيسة وراقها وقت جا إنت اللي اللي بيحتها وحكمتها لا بصالحا أو إنا يرها محمد سليمان شيكدي بيو قاعدين بيشي كبويه لبطوا ما لو حوق وين بس صقدح حتى بابور هرجيسه محمد سليمان ما صارن صقدح وقوي هرجيسه ولا عرري بلق عسبه لمريي كربد ربا دوش القمري سيلع بعد دوش القمري محمد سليمان ماليه بين دوش القوسي سيدي كدب waxa subax kaliya talo arkay isagoo jabuuti dhex taagan gobonimada maxamed saleebaan isagoo turaya af xumana ka dhowraya deegaan ahaan inuu ka soo jeeday waqooyi tuuq iyo jaaq lama maqal bartii buu jabuuti joog ku qabsaday sidii buuna qurbihiisa kula soo noqday ninkan oo la yiraahdo بابا يوسف تعالي بيجي كوبي سجاشن كي يسقوا مركب ورا تشوفوها وقتها شبابية سلمى حصوه بين إثيوبيا وأركي تري السلام تميرها أي مرمريان بوجا يقلما بوجرتاي بوجا يقلما دوام بلعبين وكو قرقرة وحيابا السلام ما نسيرا يميرك قرآن يان أكفدي مالين السلام ميل سكول ورسين السلام تاجنا شيكن نوعاص أي مشاهد كنا نقول سيدو أفكي سكر تاولي جي نولش إذا حبت نيجي داوعي قاعد داي حبت نيجي كمين من بور كهر laba sano ka hor mar uu India tagay oo kali inan ay dhalay ay siisay ugu soo bedelaysay ayuu waa markii koowaad jirkayga irbad la geliyo dhiigna ka daato baba Yusuf Taale waxaan tusi doonaa halku bal xumaanta qabeelku ka gaadhay isaga oo dafiraya riwaayado uu lahaa Sangub Ilaahay ha u naxariistay oo ku sheegaya in adeerkii Xasan Garay inuu heesta iyo riwaayadaaba lahaa waan tusi doonaa waanan hayaa haddana in tusi doona baba Yusuf Taale heesaana ma sameeyay hal hees buu sameeyay hees loo oran karo ay koonfur lagu caayay weeyaan heesta xidiga geeska loo dhibay waan idin dhageysiinaya iyadana baba Yusuf Taale mujaahidnimadiisa waxa uu ku daray sheekadii ugu yaabka badnayd ee mujaahidnimadiisa markan isaga mujaahid aniga uu qiray waxay noqotay markii uu riidna la joogi jirtay mujaahidada qoroofa la oran jiray oo riidaas qoroofa la oran jiray maalin dagaal dhacay bay naga dhimatay iyadaba xabad baa ku dhacday way sheedo riida waxaan ku xasuustaa todoba mujaahid oo siiraanya ka kawhaba xaanaheeda ku cadaysan jiray maalintaasaan anigu boobay isaga mujaahid waa qoonsaday haddaba halkan igala daawada isagoo dafiraya riwaayad dhan oo uu lahaa Allah u naxariistay Sangub isagoo ku sheegay inuu adeerkii Xasan Garay riwaayada leeyay kadibna waxaan dhageysan doonaa in yar oo kamida waxyaabaha baba Yusuf Taale fanka uu ku soo garay hees caya oo uu dhiibay Xasan Garay waa riwaayad lahaa waa maadaysa dunyadu dadkuna way matelayaan lama qaxday ama ku dhigeeyahay waa maadaysa dunyadu dadkuna way matelayaan waa fikradii abwaanka Maxamed Cabdullaahi Singub ضقمه مركي ومكيكيغا ضقمه مركي ومكيكيغا ضقمه مركي ومكيكيغا عقوي مصنوغ مودي دنتي ارغا ملكا لميريقي مدام مكسكي مجيري ابنت ملاسا ميسنتقين كما لفسد يومي عيسد قال مين مين بين اسقبين ما نورد الله ما قصتين مين
دمشيدا قبلي تشيديو حمرتا وتعلدا حمرتا وتعلدا الله ترى هذا كينا دمبر سامع علن كينا دوكس لقى برتا دق إلهي بالي لبلي مانا سومالي بالي دلكينينا ويانا كد الحيس معانا دويا دقشا